Chris Ford mar kale ayuu baaqanaa saaxiibayaal oo hiritka hogaamiye ka ahay taxanihii saddexda qayb ahay koox Milgia Chris 2 iyo Chris 3 indhaba caadi maaha saaxiibayaal warbixinadooda waxa way filmo aad u fiican ayay ahaayeen oo sheekadoodana heer sare ahayd laakiin hadda ninka lagu magacaabo Rakesh Roshan oo filmkan agaasimi jiray oo haddana soo saare ka noqonayo shirkadda lagu magacaabo Bollywood Hongama ayadoo wareysanayso ayuu wuxuu sheegay waxaan la daalaa dhaca ayuu yiri dhanka soo saarista maxaa yeelay qarashka filmka lagu soo banayo waa qarash aad u fara badan filmkiisii ugu dambeeyay Chris 3 qarashkii lagu sameeyay saddex jibaarkiisa ayaa Chris Ford ku bixiso maadaama sheekada filmka ay la saddexdii sheeko ee la soo dhaafay ay ka miisaan culusaa sidaa darteed marka wuxuu sheegay budgetka 400 oo koror inuu gaaro ayay u badan tahay lacagtaasna faro kuma hayo ayuu yiri marka cabsida weyn ay haysato waxa ay tahay in sanad kale inuu dib u dhaco ayaan ka cabsanaa laakiin haddii budgetkaas 400 aan helo filmka isla sanadkan ayaa bilaaba ayuu yiri sidaa darteed filmkan waxaa soo saarayaalka ee saaxiibayaal shirkadda lagu magacaabo Marvelous oo ninka odaygaas daar anada uu leeyahay iyo bahalkii isla Rakesh Roshan oo asagana dhanka soo saaraha qaadan doono dhanka agaasinka actor kale ayaa qaatay sidaa darteed marka waxa director kale ayaa qaatay marka Rakesh Roshan wuxuu leeyahay haddii sheekada Chris Ford aan wax ka dhimo wax isbedelayo ma laho yiri filmka waa oo hoobana hal sheeko ama hal qoraal ama hal sadar hadii laga bixiyo meesha film meesha ma ka soo baxayo yiri marka sheekada sida u qoray ayaan rabaa ayuu yiri inaan budget ahaan u geliyo laakiin hadda wuxuu yiri wax budget afar kuma hayo waxayna u badan tahay sanadooyin kale kadib inuu dib u dhici doono filmkaas saaxiibayaal haddana wuxuu sii sheegay in wiilkayga waatu ayuu shaqo ahaan wada hadeertan waana gabagabo qorshahana wuxuu ahay waatu markuu dhameeyay inaa Chris Ford sameeyna laakiinse wadadan aan u jeedo iyo indhahan aan u jeedo Chris Ford inaa sameeyna uma eka ayuu yiri saaxiibayaal director kan ama soo saarahan Rakesh Roshan lagu magacaabo sidoo kale saaxiibayaal